bishaareynayaa Somaliland waxay samaysay baasaboor e-passport la yiraahdo oo ka heer sareeya ka Soomaaliya waxaanay dufcadiisii u horeysay soo degtay shalayto waxa ku baxay lacag fara badan oo 1 milyan oo dollar ah halka milyan inagoo baahi badan qabna waxaynu u sameeynay laba arrimood in caalamka aynu geeyno baasaboor mishiinadoodu akhriyi karaan oo ay garan karaan halka uu ka soo baxay cid wadata noocu yahay iyo inaanu hayn been abuur cid kale sidato talabaadna waxa weeye dalkan inaynu ka jarro Soomaaliya ama dib u soo noqono xorriyadeennii waxaynu u daadinay dhiig badan waxaynaga maqan dhalinyaro fara badan waxaynaga maqan odayaal fara badan waxaynaga lumay taariikh fara badan waxaynu u galay dib fara badan dunida casriga ah maanta way iskhiyaameynaysaa waxyaabaha la isku khiyaameeyo waxa kamid ah ka hor imanaya go'aansutaageena inaynu la wadaagno baasaboor aan dawlad lahayn waliba baasaboor aan dawlad lahayn oo aan balahayn oo hooyo lahayn oo ah ka Soomaaliya ay gidaarada ku bixiso oo aanay xukumin meelaha lagu bixiyo dawlad xukunta aanay jirin inagu waxaynu samaysanay mid la dawlad kantaroosha iyo cid lagala xiriiro oo xataa haddii ninka wata uu dambi sameeyo aynu mas'uuliyadeeda qaadayso ninka baasaboorka Soomaaliland iyo baasaboorka sita inuu yahay muwaadin Soomaaliland ah wax alla wixii ka yimaadana dawladda Soomaaliland dusheeda ku qaadayso taa waxaanu wadnaa imika inaanu waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa madaxweynaha Djibouti iyo dawladda Djibouti oo dhawaan safar aanu ku tagnay markii aanu u sheegnay inuu baasaboorka soo socdo noo ballan qaaday inay nagula macaamili doonaan oo ay inoo ogolaan doonaan inaynu ku safarro dalka Djibouti baasaboorka cusub ee Soomaaliland dalal kale oo fara badan hore inoo ogolaana way jiraan oo maanta kan qaadanaya waxaanu ku tali jiraa dawladda Sacuudiga haddii ay baydmo inta xashka ka horeysa inaanu u geeyno baasaboorka Soomaaliland Sacuudiga uu ixtiraafsanaan laakiin uu yaqaan inuu nahay dad qaran oo gooni u taagan uu yaqaan inaan nahay dad Soomaaliya kamid ah waxaanu sheegi doonaa inay dadnimadayada iyo islaamnimadayada iyo dawladnimadayada iyo mas'uuliyadayada iyo mas'uuliyadda aanu ka nahay baasaboorka cid sita inay noogu ogolaadaan inaanu ku soo xajno ee aanay nagu khasbin midaan dawlad lahayn oo aanan wakiil ka ahayn oo aan la noo qabsan doonin waxa ka yimaada inaanay nagu khasbin inaanu ku gudano waajibaadka Ilaahiga ah Ilaahayna saaray inay nagu ciriiriyaan warqad aan saalix ahayn oo ammaankeedu sugnayn inayna yiraahdaan haddii taa ku iman xaji maysaan taan waxaan qaba markaa inuu wada xajinahay haddii la inoogu diido baasaboorkeeda oo inaynu lacag iska bixinaba aan loo baahnay kulluna xujaaj baynu noqon doonaa haddii la yiraahdo waxaan leeyahay waanu geynaynaa waanu weydiisanaynaa waanu u sheegaynaa wayna yaqaanaan hadday diidaan baasaboorkeena xajka ilaahay iyaga isku reebayna haddii la yiraahdo inana waa ka tashaynaa waxaynu yeelin taas waa taa waxaanan rajaynayaa filayaa dawladda Sacuudiga waa dawlad islaam ah
wayna yaqaanaan xiriir wanaagsan baynu leenahay inay naga aqbali doonaan baanu rajo weyn ku qabnaa inaynu xashka ku tagno sanadkan baasaboorka Soomaaliland cusub. Salaam.